iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda kale ee qaranka dhamaantood iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Banaadir sanad guuro wanaagsan baan leenahay runtii maanta ma ahayn inaynu halkan aynu hool ku dhex qabsano 18 Maynagoo Muqdisho ama gobolka Banaadir joogna waxay ahayd inaynu boorar la hor istaagno halka dalka looga taliyo ama villa Soomaaliya waayo Soomaaliya koonfurta Soomaaliya midowgii 60kii Somaliland ayaa u keentay calanka iyo midnimada mar labaad reer Somaliland ayaa ku dhawaaqay federal mar saddexaad halkan waxaynu wada joognaa dhamaanteen midnimo oo aynu u joogneen u heelanayn laakiin dadka halkan markay yimaadaan Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya waxa waa cusub baa u bariya waxa ku weynaata qarannimada Somaliland waxa ay ogaadaan wax badan oo marka hore ka daahsoonaa runtii magacii federaal loo oran jiray ee ka koobnaa labadii dhinacay midoobay 60kii Soomaaliya koonfureed iyo Soomaaliyada waqooyi ee imika Somaliland federaalka saxda ah waa kaas labada dhinac midowgoodu waa ka ama federaal waxa loogu yeeri karaa midow ay u dhan yihiin labada dhinac waqooyi iyo koonfur laakiin federaal koonfur baa gudaheedii loogu ilduufay oo magacii federaalka kaligood baa intay isu qaybqayeen gobol beesha caalamka iyo duniduba iyo waliba siyaasiyiinteena Somaliland hogaaminaya haday tahay asxaabta qaranka iyo haday tahay xukuumaduba ana mar qura aan loo maqal cid ka doodaysa ama ku doodaysa magaca federaal ee saxda ah waa marka la helo midow labada dhinac ay u dhan yihiin kaas baa federaal saxa uma aqoonsanin federaal uma aqoonsanin koonfur oo kaliya waayo defti dawladnimadii wixiiba kaligood ayay ku koobeen marka dadka halkan inoo jooga ayaan doonaya iyagana inaan xuso oo aan mid ka soxo runtii halkan waxa weeyaan caasimadii federaalka Soomaaliya ama Soomaaliya oo dhan Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed waxay nidaamka ay ku leeyihiin haday tahay golayaasha sharci dejinta iyo haday tahay xukuumadahaba waxay ku leeyihiin xubno kuwaas oo ku jaango'an nidaamka la yiraahdo 4.5ka ama 4.5 haday tahay Soomaalida NFD haday tahay Soomaalida Ethiopia haday tahay Soomaalida Djibouti way ku leeyihiin laakiin kuwa Somaliland 12 sanatar iyo 46ka golaha shacabka waxa dabar looga dhigaa aqoonsiga iyo goolsitaaga Somaliland iyaga oo la mid ah beelihii kale ee dawladaha waaweyn sida Ethiopia iyo NFD iyo Djibouti ay ku leeyihiin mudanayaal iyo xildhibaano matalaan laakiin dawladahooda ma matalaan shacab ahaan dadka Soomaaliyeed bay matalaan taasna waxaan doonaynaa inaanan dadka beelaha aanu ka soo jeedno ku jooga nidaamka 4.5 golayaasha inaanay mar qura afkoodana aanay soo marin aanay dhici karinna inay yiraahdaan waxaan matalnaa Somaliland ma matalaan kuwa Djibouti ama reer Djibouti ama aan carabka ku ballaarinay beelaha ciise ee halkan matalaada kule Djibouti ma matalaan laakiin Soomaali ahaan ayay ku joogaan halkan 4.5 ahaan ama habka qabaa'ilka marka saa darteed taasna waxaan doonaynaa inaan munaasabad uga faa'iideysano oo sixid lagu sameeyo waxaan Somaliland wasaad la socotaan 1991 bay dib uga noqotay midowgii 60kii aynu keenay kadib markii uu ka weeqmay dhanka koonfureed Somaliland waxay leedahay lacag u gaar ah waxay leedahay dalku gal u gaar ah waxay leedahay ciidamo suga xuduudaheeda boqolkiiba saadarteed waxa aanu runtii aanu soo jeedinayn beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya in ay Somaliland si gaar ah tixgelin ay u siiyaan Somaliland way buuxisay dhammaan shuruudihi ay lahayd saadarteed inay aqoonsato annagu runtii dadkayga halkan jooga uma joogana inaanu maraka ahaano oo aanu dabar ku noqono goolsitaaga iyo midnimada dadka reer Somaliland ee buuxiyay ee dhaabada u dhisay nabadda 30 sano ay ku naaloonayeen midnimaduna runtii
waxay ka dhici weyday oo mar walba ay ka dhicisowdaa waa koonfur eedda lama wada lahaa waxaan kaloo munaasabadda doonaya inaan uga faa'iidaysto dowladda iyo xukuumadda somalilan waad arkaysaan maanta gooniisitaaggii iyo gobonnimadii somalilan baan muqdisho uga dabaaldegaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad wax ka beddel ku samaysaan oo ay idinka ammaan helo marada buluugga ah ee aad cayrsanaysaan sida annaga halkan loogu tixgelinayo ee aan xorriyaddeeda ugu dabaaldegayno in aan maanta laga bilaabo rikoorkaas aad tirtirtaan waxaa kale oo aan madaxweynaha fariin gaara ugu dirayaa inuu xeerkii ugu dambeeyey uu soo saaray ee uu dibad wareegga dhallinyarta iyo dadka halkan usoo shaqo tagtay ee camal la-aanta somalilan ay kaga dhacday qaarkood ama ay halkan shaqooyinka u jooga ama u soo shaqo tegay inaad shafeeco qaad aad u samayso oo aad ka tirtirto wareegtadii ugu dambaysa soo saartay ee ciqaabta ay ku mutaysanayeen